qoysas degan xaafadda jaamacadaha ee degmada Dharkeenle ee gobolka Banaadir ayaa waxa ay dhageen dibadbax ay kaga soo horjeedaan burburin lagu sameeyo waa guryaha ay ka degan yihiin xaafadahaasi jaamacadaha oo sanadihii ugu dambeeyay ay degnaayeen. Zakariya Maxamuud Cali ayaa faahfaahinta warkan eegaya. iyadoo dhawaanahan bay caawasho wadeen qaar ka mid dadka ku nool xaafadda jaamacadaha ee ku taala degmada Dharkeenle ee magaalada Muqdisho ayaa maanta waxay banaanbax ay kaga soo horjeedaan amar ka soo baxay dad doonayo in guryahooda la dumiyo kuwaas oo ay sheegeen in ay ka mid yihiin madaxda dawladda Soomaaliya hase haatee ay yihiin dad been abuur wada. qaar ka mid banaanbaxayaasha oo la hadlay warbaahinta ayaa madaxda dawladda Soomaaliya ka codsaday in arintan ay wax ka qabtaan si ay guryahooda u sii degnaadaan. ra'iisul wasaaraha ra'iisul baarlamaanka wasiirka amniga wasiirka hadii alla gureen gudaha waxaan ka codsanaynaa dad aan ummadda tixgeliyeen maatada tixgeliyeen wadankaba aan wax ku lahayn ayaa ummadii barakiciyo hayo meel walba waa naga barakacay madaxweynaha amarkiisu waxa waay in masaakiinta meeshii inta looga baahdo dawladda baahatay deganaadaan annagoo degaarkiisa ma in qaarna waa loo sharciyeelay qaarna ka caleera ma istaaheshin adduunyada lama arag lama maqal hebela istaahil adigu ma istaaheshin waxaan codsi u dirsanaynaa madaxweynaha ra'iisul wasaaraha ra'iisul baarlamaanka wasiirka arrimaha gudaha wasiirka maxaan ku raahdaa harkaha iyo saamaha wasiirka amniga intaas waxaan ka codsanaynaa dawladda ayna sharafta la qaxootiyaan nahay waxaan deganahay harkaha iyo saamaha dad waxaa jira soo hayaamay oo xoolihii ka soo ba'een oo baadiye ka yimid oo ilmaha ay koo gacanta ku wata yimid dad waxaa jira indhoole oo indho qabin oo lixaadooda ku shaqaysan karin dad waxaa jira cuuriyaan oo garguuranaya dad waxaa jira masaakiin oo agoon intaasoo ummadda dada u yimid annaka hurdayna soonkii kowdii soonka ramadaanka habeenkii subaxdii kowdaheed annaka hurdayna inta yimideen waxay ku qareen dumis waxaan ka warqabna ma jirno waxay yihiin ma naqaan markii dambe waxaan ka war helnay inay ganacsato yihiin ay afar jaable yihiin oo annakana barakicinayn. dhawaan ayay ahayd markii uu gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya uu warbaahinta u sheegay in asaga iyo madaxweynaha ay kulmeen ayna ka wada hadleen sidee u shaqeyn doonto dawladda Soomaaliya. waxa uu sheegay in ay isku afgarteen in lagu shaqeeyo rabitaanka shacabka Soomaaliyeed. waa kan mid ka mid ah dhibanayaasha oo tilmaamayo in madaxda dawladda loo baahan yahay inay ku shaqeyso rabitaanka shacabka Soomaaliyeed. waxa ka codsanaynaa codsashada madaxweynaha wasiirka warshadaha wasiirka amniga wasiirka gudaha wasaaradaha dhan waxa ka codsanayna dhulkan damaayaal waa in nolol sharciye warqada anagoo isku hurdeen guryahan sidii dumis u qoreen idankan waxa idaga suganaa warqad sharci in guryahan noo keentay anagoo hurdeen wabillahi tawfiiq. Zakariya Maxamuud Universal TV Muqdisho.